Assalaamu calaykum daawadayaal waa Shubaal Media waxaan halkan idinkala wadaagayaa fiidiyo iyo taxane ahaa oo aan maalmahanba halkan soo gelinayay oo ku saabsan magaalada Hamburg taariikheeda iyo goobaheeda muhiimka ah. Fiidiyodan wuxuu ku saabsan yahay dekedda Hamburg. Sidaad ogtihiin dekeddaani waa dekedda labaad ee ugu weyn qaaradda Yurub, waxaanay ku taallaa dalka Jarmalka. Magaalada Hamburg oo ah magaalada labaad. Haddaba dekedda waad aragtaan baaxaddeeda iyo sida ay u dhisan tahay, qaab dhismeedkeeda. Walow uu xilligan yahay xilliga winterka oo aad iyo aad qabow u dhacayo, saameyn badan oo ku yeelatay magaaladani coronavirus iyadoo lockdown ku jirta. Hase ahaatee dekeddu maaha mid maran. Muuqaalkan yar aad kooban aad arkaysaana ma ahan mid dhammaystiran oo dekedda oo dhan lagaga soo wada duubi karo waaye, maadaama dekeddu tahay deked aad iyo aad u ballaaran oo fadhigeedu uu aad u weyn yahay iyo dhulka ay ku baahsan tahay. Waxaanu jeclaysanay inaanu wixii ay ishayadu qabato amaba aanu ka gaari karno inaan idiin soo duubno. Waa anigu dalxiis ku maraya saaranna markab yar oo ah kuwa isaga kala goosha magaalada Hamburg gudaheeda, iyadoo dekedduna ay u dhaxayso isla magaalada Hamburg dhismayaal kala duwan oo dhinaca iyo sokayda iyo geesahaba kaga teedsan. Waxaad moodaa in dekedda loo naqshadeeyay nidaam aad iyo aad u qurux badan. Maraakiib yaryar, kuwa waaweyn, kuwa dhexe, kuwa cargo, kuwa shidaal, xataa kuwa waxaad ku arkaysaa maraakiib ciidan oo loo yaqaano maraakiibta Navy-ga ciidamadu isticmaalaan, iyo weliba iyagoo maraakiib kala duwan oo kuwa ciidanka sida gujisiyada iyo maraakiibta dagaalka, kuwa diyaaradaha qaada, intaba waa ay ku xiran yihiin. Waxaa idiin muuqda daawadayaal waa kreenada ama waxa loo yaqaano wiishashka. Waxaan oran karnaa dhaqaalaha dalkan Jarmalka aadka u sii kobcay sanadahan dambe waxaa qayb weyn ka qaadatay dekeddan, maadaama ay tahay dekedda labaad ee ugu weyn Yurub. Waxaana u malaynayaa inay tahay dekedda saddexaad ee dunida iyadana ugu weyn. Waxaa la oran karaa marka qayb weyn ayay ka tahay dekeddanu kobaca dhaqaale iyo horumarka uu gaaray guud ahaan dalka Jarmalka, gaar ahaan magaaladan Hamburg oo ay tahay iyaduna magaalada labaad oo ugu ballaaran dalkan, uguna population-ka badan dadka shacabka ku nool. Dhismayaal qurux badan baad arkaysaa oo aad iyo aad u sida markabka u naqshadaysan, sida dhismahaas hadiraan idiin muuqda oo aad moodaan inuu yahay maraakiibta dalxiiska sidoodii ayaa loo dhisay. Waxaad moodaa inuu yahay markab mahase ahaan waa dhismo ku yaala dekedda magaaladan Hamburg. Daawadayaal waa Shubaal Media, kulanti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi.